bariga dhexe wuxuu mar kale qarku u saaran yahay in uu ka qarxo dagaal ba'an oo saameyn ku yeesha dalalka ku yaala gobolkan ee bariga dhexe kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Trump uu ku hanjabay in aan waqti kordhin u sameyn doonin xabad joojinta xilligeedii oo ku eg habeenka Arbacada xilliga dalka Mareykanka. Trump ayaa wuxuu sheegay in haddii xilligaas ka hor heshiis la gaarin ay adkaan doonto in xabad joojintii waqti dheeri ah uu ku daro. haddaba sababtu maxay tahay Trump se hadalkan xilligan muxuu ugu soo aadiyay warbixintan ayaan kugu wadaagi doonaa soo dhawaada. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si faahfaahsan uga hadlay xaaladda xabad joojinta oo lagu wado in ay ku eg tahay habeenka Arbacada xilliga dalka Mareykanka isagoo muujiyay shaki xooggan oo ku saabsan suurtagalnimada in la kordhiyo haddii aan heshiis buuxa la gaarin ka hor waqtigaas. Trump wuxuu sheegay in wadahadallada socda ay weli la daalaa dhacayaan caqabado culus gaar ahaan khilaafaadka ku saabsan qodobo muhiim ah oo labada dhinac aysan weli isku raacin. wuxuu carabka ku adkeeyay in kordhinta xabad joojinta aysan ahayn arrin si fudud loo go'aamin karo maadaama ay ku xidhnaan doonto heerka horumar ee laga gaaro wada xaajoodka hadda socda. sida uu sheegay dhinacyada ee ku lugta leh ayaa kala aaminsan arrimo ay ka mid yihiin shuruudaha amniga, isdhaafsiga maxaabiista haddii ay qusayso iyo damaanadaha la xiriira hirgelinta heshiiska mustaqbalka. arrimahan ayaa sida uu tilmaamay dib u dhigay in la gaaro is-afgarad dhameystiran. Trump wuxuu sidoo kale sheegay in haddii aan heshiis laga gaarin ka hor Arbacada habeenkeeda ay jirto khatar ah in xabad joojintu ay si toos u dhamaato taasoo keeni karta ayuu yiri in dagaalku uu dib u qarxo ama xiisadu ay si degdeg ah u kacdo. wuxuuna intaasi ku daray in xaaladahaasi ay yeelan karto saameyn ballaaran oo ku saabsan amniga gobolka iyo dadaalada nabadeed ee socda. dhanka kale beesha caalamka oo ay ku jiraan dalal iyo hay'ado waaweyn ayaa kordhiyay cadaadiska lagu saarayo dhinacyada in ay gaaraan heshiis degdeg ah waxaana jira baaqyo ku aadan in la ilaaliyo xabad joojinta si loo sii wado gargaar bini'aadanimo iyo in laga hortago khasaare dheeraad ah oo soo gaara shacabka ee dhinacyada dagaalamaya. warbixinada ayaa sheegaya in kulamo joogto ah ay socdaan saacadaha ugu dambeeya ee ka harsan waqtiga kama dambeyska ah ee xabad joojinta iyadoo rajadu ay weli jirto balse ay hoos u dhacday marka loo eego caqabadaha jira. Trump wuxuu ugu dambeyn ku celiyay in waqti yar uun u harsan yahay xabad joojinta xilligeedii isla markaana go'aamada la qaadan doono saacadaha soo socda ay noqon doonaan kuwa go'aaminaya jihada xaaladda gobolka bariga dhexe. hadalkan ee ka soo yeeray Trump ayaa waxa uu imaanayaa xilli 48 saacadood wax ka yar ay ka harsan yihiin xilligii xabad joojinta ee Mareykanka iyo Iiraan ay wada gaareen. waxaana sidoo kale hadalkan uu ku soo aadayaa xilli la filayo ama ay socdaanba wada xaajoodyo hoose oo u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka iyadoo wareegga labaad ee wada hadallada Mareykanka iyo Iiraan la filayo inuu ka furmo Pakistan. adigu maxay kula tahay?